bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal dhegeystayaal kusoo dhowaada janalkeena rawan janal waxaa maanta qarax xoogan ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan wadada aada eerboortka aadan cadde ee magaalada muqdisho qaraxaas oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa waxaa lagu qarxiyey albaabka hore ee hoteelka africa hoteelkaas oo ay ku jireen saraakiil ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ka tirsan sidoo kale waxaa dowladda federaalk soomaaliya ay baaq u dirtay beesha caalamka si looga saaro dowladda kenya ciidankeeda in laga saaro ciidamada amisom sidoo kale beesha caalamka ayaa waxay digniin adag u dirtay maamulada jubbaland iyo puntland iyo nimankan ka midoobay midooda musharaxiinta dowladda ama musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya ay ku jiraan madaxdii hore ee dalka soomaaliya haddaba inta aan gelin aad saartaan subscribe gambaleelkana aad furato liketa iyo commentiga iyo sheerkana aadan ka iloobin janalkeena aad ayaa u mahadsantihiin kusoo dhowaada daawadayaal mar labaad waxaad weli nagala socotaan janalkeena rawan janal waxaa qarax lala beegsaday maanta hotel africa ee ku yaalo agagaarka airportka aadan cadde ee muqdisho qaraxaas ayaa waxaa sameeyey nin isa soo miidaamiyey oo ugu talagalay inuu meesha ku laayo dadweynaha soomaaliyeed sidoo kale waxaa qaraxa ku dhintay 3 qof iyo ninkii isqarxiyey ee gaariga waday qaraxa oo loo beegsaday amaba ka dhacay albaabka hore ee hotel africa waxay wararka sheegayaan in hoteelka ay ku sugnaayeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya qaar ka mid ah sidoo kale waxaa meesha joogay dad madax ah qaraxa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay dad badan oo meesha joogay amaba ka agdhowaa agagaarka hoteelka ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa isla markiiba waxay soo gaareen meesha iyada oo markiiba lasoo afjaray ammaanka hoteelkana la sugay sidoo kale waxaa yimid ambalaaskii lagu qaadayay dadkii meesha ku dhaawacmay iyo dadkii ku dhintay qaraxii maanta ka dhacay hotel africa waxaa sidoo kale yimid debdemiskii oo iyaguna ka qayb qaadanayay in ay damiyaan dhibaatadii iyo kulkii ama dabkii ka kacay hoteelka qaraxa kadib qaraxyada ayaa baryihii dambe magaalada muqdisho ku yaraa balse waqtiga ama marxaladda kala guurka ah ee isbeddelka doorashooyinka soo socda dartood waxaa inta badan dhaca qalqal amni kaas oo inta badan ay sameeyaan niman dana gaar ah ka leh oo u isticmaalaya in ay magac ugu yeelaan amaba dusha ka saaraan dhibaatadii ka dhacday meesha al-shabaab sidoo kale waxaa meesha ka maqnayn dowlado shisheeye kuwaas oo aanan ku qanacsanayn qaabka ay dowladda soomaaliya wax u wado amaba xiriir adag aanan la lahayn dowladahaas oo ay ka mid yihiin dowladaha carabta sida imaaraadka carabta iyo dowladda kenya haddaba inta badan waxaa jira siyaasiyiin amaba niman mas-uuliyiin oo soomaaliyeed kuwaas oo ku qanacsan dhibta loo geysanayo magaalada muqdisho iyo dadka deegaanka muqdisho sidoo kale waxa aysan ogoleen dadkaas in magaalada muqdisho nabadgelyadeeda ay dib u soo laabato amaba waxaa dan ugu jirtaa ama kuwa lagu magacaabo danleyda siyaasadda in ay muqdisho ahaato meel aanan nabad ahayn oo weligeed ay dhibtaa iyo silaca ku jirto haddaba wixii kusoo kordha qaraxaas asxaabta sharafta leh dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay ku adkeysanaysaa amaba mar walbo ay ku dadaaleysaa sida dowladda kenya ciidamadeeda ka jooga dalka soomaaliya ay uga saari lahayd amaba kenya ciidamadeeda ugala bixi lahayd dalka soomaaliya dhanka kale dowladda kenya ayaa waxay ku calaacashay in arinka xiriirka siyaasadeed ee soomaaliya ee u jartay dalka kenya uusan salka ku haynin amaba aysan waxba iska quseynin labada qadiyadood ee ah in kenya ciidankeeda dalka soomaaliya uu sii joogo
iyo in Soomaaliya iyo Kenya xiriirkooda uu go'o, balse dowladda Soomaaliya ayaa waxay ku andacoonaysaa amaba ay sheegaysaa in Kenya iyo iyada ay ka dhaxayso dagaal ba'an, dagaalkaas oo ah dagaal siyaasadeed iyo dagaal xuduudda dalka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeyo ay isku hayaan dowladda federaalk Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland oo taageero buuxda ka helaya dowladda dalka Kenya. Sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda ayaa waxay baaq u direen beesha caalamka in loo ogolaado in ciidamada Kenya ay dalkooda ka baxaan, maadaama dowladda Soomaaliya ay haysato ciidan maanta ku filan dalka in ay amnigiisa ilaaliyaan. Maxaa yeelay dowladda Kenya ciidanka ka jooga waxay qaataan keliya mishaar oo ma ahan dad danaha Soomaalida ka shaqeynayo, waxay ka shaqeynayaan danaha dalkooda. Dowladda Soomaaliyana ma ogolaan doonto in dad ciidamo dalkeeda jooga ay danahooda gaarka ah iyo danaha dalkooda ka shaqeeyaan. daawadayaal weli waxaad naga daawanaysaan janalkeeni Rawaan Channel. Waxaa sidoo kale beesha caalamka ay digniino u dirtay dowladaha ka midka ah dowladda federaalka ama maamulada ka mid ah dowladda federaalka ee Jubbaland iyo Puntland, iyada oo garab istaag weyn u muujisay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya kadib markii ay shirka beesha caalamka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu kusoo idlaaday maalinkii shalay ahaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan Villa Soomaaliya. Beesha caalamka ayaa waxay garab istaagtay go'aanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxaa lagu qasbay dowladaha Jubbaland iyo Puntland in ay u hoggaansamaan amarada ka soo baxaya dowladda dhexe ee Villa Soomaaliya. Sidoo kale beesha caalamka waxay digniino adag u direen midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya, kuwaas oo looga digay in ay ka shaqeeyaan in dalka uu galo qalalaaso siyaasadeed amaba ay ka ogaan dalka dagaal sokeeye, kaas oo in badan nimanka mas-uuliyiinta ah ee ku jira ama ku midaysan midowga musharaxiinta, gaar ahaan madaxweynayaashii dalka soo maray iyo niman kale oo wasiiro soo noqday, inta badan handadaadooda ay ku muujiyaan in dalka uu dib ugu laaban doono 1991, taas oo macnaheedu ay tahay in dalka la burburin doono. Dalkan meel fog ayaa laga keenay oo dhibaato weyn ayuu kasoo kabsaday. 30 sano muddo ku dhow ayaa waxaa wadanka dhulka loo dhigi waayay cagaha, iyada oo mar walbo ay soo baxayaan niman hortaagan ama siyaasiyiin jeebkood u shaqeysta ama dantooda keliya ka eegta in ay huriyaan dagaal amaba dalka uusan horumar gaarin. Beesha caalamka ayaa waxaa ka go'an in ay dalkan Soomaaliya ee dhibaatadiisi soo ragaatay oo waqti badan soo qaadatay in dhibta uu ka baxo, kadibna ay dowladda Soomaaliya noqoto dowlad adduunka wax la qaybsata oo la jaan qaadi karta dowladaha adduunka. Waxaa jira dowlado fara badan oo Soomaaliya garab taagan sida dowladda Turkiga iyo dowladda Qatar, iyaga oo inta badan ku taageera dowladda Soomaaliya in ay siiyaan hubka noocyadiisa fudud iyo noocyadiisa kale ee loo isticmaalo amniga dalka. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. aad ayaa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullah.